ilaa iyo waxaan kasoo shaqeeyay konsolada bus driver waan soo noqday aakhirkiina markaan arkay dhibaatada ka jirta maaragtay lacag yarida aad bay runtii u lacag yartaa qof bini'aadan markaad u shaqaynaysid waa budget go'an weeye inta aad shaqaynaysid waa lagu cayimay marka go'aan waxaan ku gaaray inaan noqdo self employment waxaan isiri bal maxaa ku siin kara fursad salaadahaaga adoo tukanaya lacag fiicanna kaa soo gasho runtii waxaa ii soo baxday in fursad ahayd markaa oo qorneedna de wax walba waa qadar inaan training ku sameeyo black cardka London oo taxiga London iconiga ah 4 sano ay ugu qaadatay markaas kadib ayaan maaragtay waxaan bilaabay inaan shaqadii ku guuleysto waxaan soo waday muddo adiga hadda tan 7 sano ka badan anoo shirkadaas u shaqeynaya maaragtay London taxi ayaa haddana waxaa ii soo baxday shirkadan maaragtay one life markii ugu horreysay runtii presentation yar baan arkay laakiin markaan fikirkeeda arkay isla markiiba runtii aad bay ii soo jiidatay sababtoo ah arrinkan waxa weeye waa life changing dad badan buu runtii noloshooda wax ka bedelayaa waa shirkad u shaqaynaysa sida waddankeena waxaa ka jira waa garanaysaa dhammaantiina EVC iyo SAD baa ka jira wax la yiraahdo iyo touch waa telefoonada lacagta la iskugu diro marka adduunka marba marka ka dambeeyo horumar baa la gaaraa marka hadda kambaniyal waxaa soo baxay lacagaha technology-ga online ku diraya oo haddana anaga shirkadaha wadamadeena waxay isticmaalaan dollarka iyo banki isticmaalaan laakiin kambaniyadan waxay samaysteen maadaama ay kambaniyo waaweyn yihiin lacago u gaara ayay samaysteen oo sida dollarka oo kale ID leh oo lacagtaas ay ku dirayaan systemkooda adigi markaad ka diranaysid marka lacagti waad sarifan kartaa ama dollar baad ku sarifan kartaa ama Australian dollar ama English pound meesha joogtay mar walba ku xiran tahay waxaa jirta shirkad ugu horreysay oo soo baxday oo horumar runtii weyn gaartay hadda anaga kambanigeena ayaa runtii suuqa maanta liid gareynaya marka qaabku u shaqeynayo iyo xagga sharciga iyo diintaba waxa dhan waa idin cover gareyn doonaa diiniyana arrinkan waa xalaal oo macnaha waa business waxay la mid tahay sida dahabka oo kale barnaamijka aan kala hadli doonana wuxuu khuseeyaa lacagaha waa just money iyo waxaan ka hadli doonaa waa currency marka waxaa jirta adduunka xilligii ugu horreeyay wax lagu kala iibsan jiray wax la yiraahdo barter system waa dhinaca maaragtay cunnada wax lagu kala gadan jiray sida maaragtay hilibka oo kale caanaha khudradda waa la kala bedelan jiray lacag ma aysan jirin zamankii hore kadib waxaa yimid dahabka sida silverka iyo coinka waxaa ku soo xigay paper currency-ga oo soo baxay 1800 ee waqti sanadkaas kadib waxaa yimid kaararkii Visa card iyo Mastercard oo maanta qof walba Europe jooga ama Westernka uu haystaa kaararka haddana waxaa ka dambeysay digital system baa yimid oo sida PayPal oo kale iyo saacadaha in wax lagu kala iibsado oo almost wixii dhan waa wada digital marka muhiimadda waxay tahay oo inaan isla fahanno lacagaha dollarka ama waddan kasta wuxuu haysta wax la yiraahdo reserve waxa uu ahaa bangiga dahab maanta bangigii meesha uu ka baxay dahabkii dadkii marka lacagihii qiimahooda hoos bay u dhaceen maanta hadda English pound markuu Europe ka baxay boqolkiiba 20 wax ku dhow buu hoos u dhacay marka qofkii 100,000 bangiga u tiilay 20,000 buu khasaaray marka nin la yiraahdo Robert Kiyosaki wuxuu yiri dadka saverska bangiyada lacagta dhigta waa losers maanta lacagta saving uma isticmaali kartid oo boqolkiiba 3 ay hoos u dhacaysaa sanad walba marka solutionka waxay noqotay wax la yiraahdo cryptocurrency marka faa'iidada ugu jirto waxay tahay lacagaha la iskugu diray aad bay u yar tahay bangi ama uma baahnid xawlaadaha inaad maaragtay martid anaga waanu naqaan Soomaali baynu nahay waa EVC-ga oo kale toos baa qofka lacagta ugu diraysaa waxaana la mid tahay adoo email diray oo kale message waxa qiimaha u yeela lacagtan waa dadka waxaana la mid tahay dahabka iyo silverka oo kale shirkadii ugu horeysay ee arrinkan soo saartay waxaa la oran jiray Bitcoin waxay sameysay wax la yiraahdo blockchain waa technology oo database sida bangiyada ay ku shaqeeyaan oo kale laakiin waa more sophisticated wax la xadi kara maaha rasiidkii marana waxa weeye weligiis ma lumayo shirkadda Bitcoin markay soo baxday 2009 halkeeda shilin wuxuu ahaa 10 cent waxay sameysay lacag gaaraysa 21 milyan waxaa kaloo jirta marka shirkadda markay suuqa timid halkeedii shilin wuxuu gaaray lacag gaaraysa 1203 hadhow baa idin tusin doonaa markaan dhamay barnaamijkan shirkaddan suuqa markay haddeertaan maanta waxay ka maraysaa shilinkeeda 2900 buu marayay halka shilin oo aad bay yacni lacagteeda qaali u tahay dadka hoos ku arkaysaan markuu 10 cent ah bay wax ku darsadeen shirkadda maantana waxay ka noqdeen milyaneer ka noqdeen lacag millions bay ka sameeyeen
dad badan baa markay waxaan soo baxaan shaki ka gala isdhaha waxaan waa la isku dhacaa sababtoo dadkii online-ka iyo boqolaal shirkadood baa jira shaki baa dadka qaar ka qaadeen raggii wax ku darsan baa ka hadlay wuxuu yidhi nin saaxiibka Steve la dhahaa wuxuu ku darsaday shirkadda 900 markay suuqa timidna wuxuu ka helo yidhi shil lacagtii 8 milyan oo faa'iido ah profit asaga marka Google-ku aaminay macnaha Google-kana waa garanaysaan qof walba wax ku soo qoro negative ah waxaa jira inan kaloo $720 kaliya ku darsaday shirkadda Bitcoin wuxuuna ka faa'iiday lacag gaaraysa 886,000 Thanks, no fees, no inflation. These are the potential perks of this thing called Bitcoin. But is Bitcoin really the money of the future? Bitcoin. All the rage, but what the hell is it? Bitcoin is better than currency. There's a big industry around Bitcoin. People have made fortunes out of Bitcoin. Technical answer on Bitcoins is that Bitcoins is a remarkable cryptographic achievement. It is a huge deal. It's a huge, huge, huge deal. If people have got lots of Bitcoins and they want to go to space, I'd much rather they spend that money on our spaceship. I mean, I own Bitcoin in my hedge fund. I own Bitcoin in my fund. I own Bitcoin in my private account. waa arkaysaan waa dadka adduunka ugu caansan Bill Gates iyo Richard Branson iyo maaragtay Google CEO-ga dadkaas oo dhan waxay ahayn shirkadda Bitcoin dadka wax ku darsaday macnaha waxay ogyihiin waxaan in loo baahan yahay ee shaqeynayaan okay hadda waxa aqbashay shirkadda Bitcoin Volvo hadda doontid Volvo maanta hadda Bitcoin haysata account-ka kugu jirto gaari Volvo waad ku gadan kartaa Lamborghini Tesla eBay iyo Microsoft Amazon PayPal maanta PayPal hadda ku isticmaali kartid adduunka waxa doonto waa ku gadan kartaa sida kaar ahaan waa lacag sida dollarka kale u shaqeynaysaa iyo bank oo kale waxa kaloo jirta shirkado waxa soo baxay gaaraya 710 ka badan oo shirkadood maanta qaarkood lacagtooda waxay u maraysaa 250 shirkadda Bitcoin waxay maraysaa 2900 meelahaas ay maraysaa company-geena hadda wuxuu noqday company-yaasha waxaanu dhan markii la isku daro waxa la yiraahdo cryptocurrency-ga shirkadda ugu weyn bay noqotay waxayna ku noqotay dadka ugu badan bay haysataa oo shirkaddii Bitcoin dadkeedii haysatay waxay ahayd 250,000 qof laakiin company-geena 3 milyan oo qof buu haystaa The biggest race in the digital world is who can create the first global cryptocurrency. The first transparent global cryptocurrency for everyone, becoming the undisputed market leader. OneCoin is a transparent company proud to have created the first mass market cryptocurrency. Safe, secure, trustworthy and reliable. The centralized model protects its members' safety. Externally audited cryptocurrency that audits its blockchain with independent third-party agents. All transactions and mined coins are recorded in the OneCoin blockchain. Tailored for future-proof mass transactions, OneCoin's blockchain can perform more transactions than global credit card providers. OneCoin is not pre-mined. You, the members, create the market, mine the coins, use the coins and make history, participating in a powerful opportunity. Transparency, sustainability, stability, growth, compliance, fairness. One coin, one world. Join the financial revolution. hadda videoha sida ku aragteen shirkadda One Life waxay sameysay waxa weeyaan database-ka ay sameysay oo ah blockchain-ka marka la isku daro waxa credit card adduunka yaalo dhan yani transaction-ka ay sameeyaan bangiyada shirkaddan way sameyn kartaa iyo ka badan maanta dadka doonaya inay lacagooda xawishaan oo 2 billion people-ka ah service-kaas way u qaban kartaa waxa jirta MySpace oo kale wuxuu ahaa social media ugu horeeyay kadib waxa yimid Facebook oo ka casrisan dadku waxay isticmaalaan Facebook blockbuster waxa laga kiraysan jiray filimada hadda waxa yimid Netflix oo Netflix-gaas ka horumarsan yahay bishina $7 kaliya u baahan tahay inaad maaragtay isticmaashid Bitcoin waa shirkaddii ugu horeysay ee sameysay waxa la yiraahdo cryptocurrency oo sidii EVC-ga waddankeena kale u shaqeeya laakiin more modern ka casrisan
hadda kambanigan OneCoin la yiraahdo wuu ka hormarsan yahay waana ka fudud dadka inay isticmaalaan marka waxay noqotay shirkadda ugu garowinka badan maadaama targetkeeda ay ka dhigtay wadamada Afrika iyo Asia inay u sameeyso system bank ah dad badan baa waxay aamineen waxaan laga dhaadhiciyay tartan baa bilaaday ee Bitcoin xageeda ay leedahay kambanigan maaragtay qaabkay u shaqeynayaan maaha cryptocurrency marka waxay yiraahdeen scam way hal iska ilaaliyo like reality-ga taa way ka fogtahay maanta aan idin hadlay ana hadda shirkadda muddo sanad iyo barku dhawaadan ku jiraa hal qof oo hal euro ee ugu luntay ma jirto suuqana mar dhow bay imaanaysaa gabadha shirkadda founderka sameysay magaceedu waxa la yiraahdaa Dr. Ruja Ignatova originalkeeda waxay gabadhan ay ka soo jeedaa wadan ahaan waa Bulgaria waxay jaamacad kaga soo baxday Oxford University ee ku baratay lowga waa doctor PhD holder xagga sharciga waxay kaloo ka soo baxday University la yiraahdo Constance ee ku taala Mareykanka dhaqaalaha ku soo baratay waxay ka soo shaqeysay McKinsey company oo ah lawyer-rada maaragtay xagga dhaqaalaha bangiyada ee wadankan Ingiriiska waxay soo saartay book la yiraahdo Learning for Profit oo aad ka helaysaan Amazon-ka waa content baan book hoos garanaya wuxuu noqday one of the best selling book oo laga helo Amazon-ka waxaana wax ka qoray IT magazine oo ah newspaper ka maaragtay dadka ugu influence-ga badan ee dhaqaalaha iyo horumarka adduunka ku soo ziyaadiya business of the woman of the year bay ka noqotay wadankeeda 2014 marka qof waxa weeyaan runtii dhaqaale ahaan aad expert u ah marka shirkadda ay soo saartay waxa dhacday saddexdii markay soo baxday shirkadda sanadkii ugu horeysay 300 oo qof ayaa millionaire ka noqotay 30,000 oo memberna waxay ka helaan lacag gaaraysa 100,000 ilaa iyo 900,000 every year shirkaddan saleska ay sameysay shirkadda waa 125 milyan wigi average waa 500 milyan bishi ayay iibisaa productigeeda 3.1 million members ayaa shirkadda ku soo biiray oo maaragtay 3 milyan iyo 100,000 oo qof 194 wadan ay ka soo galeen waxaa kaloo jirta 5,000 oo customer ayaa ka gata package-yada everyday revenue-goodan kambaniga wuxuu gaaray 1 billion revenue first year kaliya marka taasaa waxay keentay adduunka kama dhicin taariikhda shirkad soo baxday oo 1 billion ku gaartay laakiin shirkaddan adduunka 194 wadan bay gaartay shirkaddii ugu soo dhaweyd waxay ahayd Apple-ka iyo Microsoft waxaa kaloo jirta marka muddo yar kadib waxay gaartay 5.3 billion hadda capitalkeeda kor wuxuu u dhaafay ilaa 150 billion shirkaddan shilinkeeda markay soo baxday waxay ku iibinaysay 50 cent halka shilin wuxuu gaaray 985 July maantadan hadda aan idin la hadlayno dadkeena ay ku jira shirkadda One Life runtii mashxarad baan noo socota sababtoo ah halka shilin maanta wuxuu gaaray 12 euro iyo 45 waa inaan hadda update ku sameeyaa dhinacaas waxaa kaloo jirta future financial projection kambaniga targetkooda wuxuu yahay shilinkii aad ku gadatay 50 cent anaga hadda 1 euro maraya qofka inuu ku helo waa inuu gaaro 25 ilaa 100 like waxa suuragal ah inuu 600 gaaro oo macnaha demand aad u badan baa ka jira suuqa waxaa kaloo jirta inay shirkadda doonayso dad gaaraya 2 billion people oo aanan haysan bank ee jooga wadamada sub-Sahara Africa iyo East Asia Central Asia iyo Eastern Europe Latin America dad aad u badan baa ku nool maanta tusaale ahaan hadda soo qaata dadka qurbaha jooga anagoo kale ama dhaqaatiirta Hindida ah ee Europe meelba ka shaqeysta qof walba lacagta buu dalkiisa u diraa 6% ka badan commission laga qaadaa laakiin shirkadda maadaama ay technology tahay oo lacagtaada telefoonka aad ku diranaysid businessyadiina meel walba ay joogaan telefoonka aad lacagta ugu diraysid telefoonkaas wax walba laga xukumayaa waa tan idin lahaa waa EVC-gii iyo SAT-ka oo kale taasaa waxay keenaysaa profit aad u badan inuu ka imaado waxay kaloo shirkaddan samaysay wax la yiraahdo cryptocurrency education adduunka qofka markuu joogo oo shirkaddan loo sheego waa horta inuu wixii fahmi karo horta deeply faa'iidada ugu jirto marka waxbarashay samaysay hadda waxaa wax bara jaamacado gaaraya ilaa 6 jaamacadood aad ka arkaysaan halkan jaamacado kala jira hadda Australia ku yaala hadda sida ay sheegaan teamka reer Australia University of waxa kamid ah hadda Canada oo kale Fraser University Pablo University Spain New York University Imperial College iyo jaamacadahaas kale oo meesha ku jira kulligood qof walba taga waxay barayaan wax la yiraahdo cryptocurrency-ga shahaadana ku siinayaan 45 waxay qaadanaysaa 45000 bay ku kacaysaa laakiin kambanigeena wuxuu sameeyay wax la yiraahdo One Academy website ah oo education-kii dhan uu ku jiro qofka markuu soo galo wuxuu gatay waa education kambaniga haddana wuxuu ku siinayaa token oo ku noqonaya coins suuqi markay shirkadda timaadana faa'iidada coinkaas ka soo baxda aad dib u iibsanaysid The One Academy is the heart of our company. Cryptocurrency is not an easy product. It's a very innovative product
based on technology, and based on very, very complex concepts. For us to be part of this financial revolution, to be part of cryptocurrency and of the community, we need to understand exactly what we do and what we talk about. And this is why we have the One Academy. The One Academy provides you with concepts, provides you with explanation on cryptocurrency and on the financial world. I would encourage everybody to join the courses, to do the certificates, and to understand thoroughly how to use cryptocurrency, what cryptocurrency is, and how we can change the world by using it. One Academy. Learn today, teach tomorrow. Okay, qofka markuu soo galayo shirkadda waxa ugu yar oo lagu bilaabo waa 110ka iyo package-yada kala la qaadanaysaa kan 550ka labadaas ugu yar 110ka wuxuu siinayaa qofka 1000 token waxa la qaadanayaa 5000 tokens iyo 1 split waa 550ka hadaad gadatid waxay isku noqonaysaa 690 waxa kaloo raacsan 30 euro activation ay shirkadda ka qaadanayso waxaad qaadan kartaa again starterka iyo 1100ka oo asagana ku siinaya 10000 token iyo 1 split 3300 oo ku siinaysa 30000 token iyo 1 split tycoon traderka waa kan ugu faa'iidada badan anagoo dhan ku bilaawna runtii dadka UK jooga iyo adduunka meel kastaba 5000 qofka hadduu ku soo galo wuxuu ku xisaabtamaya waa life changing yani lacag noloshaada yani runtii wax fiican ku qaban doonto marka shirkadda suuqa timaado iyo premium traderka waa 13750 wuxuu ku siinayaa 150000 token iyo 2 split infinity traderka waa 27500 wuxuu ku siinayaa 300000 token iyo 3 split splitkaas macnihiisu waxa weeye package-ka inta token aad haysatid ba 3 jeer ku laba jibaarayaan mar walba waana qaabka ay u sameeyaan maaragtay tokenada oo ku noqonaya coin at the end-ga meesha halkan baad u diraysaa waa blockchain waa meesha lagu soo sameeyo lacagta inta token aad haysatid ba waxa ku qoraysaa boxkaas kadibna waxaad leedahay submit shaqada company ayaga qabsanaya adiga waxa laga baahan yahay kaliya tokenadii inaad ku shubatid xaggaas ku qortid numberkooda company-ga aad u dirtid kadib lacagtu waxay ku soo galaysaa coin account-gaaga account baad furanaysaa online ah oo wax walba aad kala soconaysid saad ku heshid coin-ka 99 token wuxuu ku siinayaa 1 coin waana kadibna coin-kii baa ku imaanaya summary ahaan waxaan idin soo qaadanayaa tusaale ahaan package-ka 5000 kaba soo qaad qofka hadduu gato educational package-ka company-gu wuxuu ku siinayaa token waa process-ka la marayo package-kii baad gadatay tokena account-kii kuu soo galaya split-ka waxa weeyaan every 1 to 3 months buu dhacaa waad sugaysaa haddaad 2 split xaq u lahayd waa inaad labadabooda sugtid kadib waxaad mining ku diraysaa company-ga baad leedahay iisoo sameeya lacagtii coin-kii bay kuu soo dirayaan oo kuu soo galaya dashboard-kaaga account-kaaga markuu shirkadda suuqa tagtana qof walba kaararkiiba ay siinayaan oo lacagtaadi waa la wada bixi kartaa haddaad doontid in ka mida waa la bixi kartaa okay 5640 hadduu qofka ku bilaabo waxaa helaysaa 5 level oo education ah iyo waxay ku siinayaan 61000 token oo free ah ay company-ga ku siiyeen waxaa ku raacsan splitka koowaad wuxuu noqonayaa 222000 token iyo splitka labaadna waxa weeye 244000 markuu ku dhaco splitka saddexaad wuxuu ku siinayaa 488000 tokens package-kan saddex split kaliya xaq ah u leedahay kadib ayaad mining-ka dalbatay waxaa ku imaaday 4880 coin account-ka ku soo gashay waa qofka 5000 ku soo galo marka maxaa dhacaya 5000 value maxaa faa'iido ah kaaga soo baxaya waa 5640 ka waxaad heshay 4880 coin qiimaha markuu noqdo 10 euro waxaad ku dhifanaysaa 4880 wuxuu ku siinayaa marka 10 lagu dhufto 48880 euro oo meesha faa'iido ku soo laabatay haddii 25 uu gaaro halkii shilin waxay noqonaysaa 122000 50 hadduu gaaro waxaa ku xisaabtanaysaa 244000 oo faa'iido ah ku soo baxday lacagtaas markay shirkadda suuqa timaado kulligeed waa la bixi kartaa package-yadan waxa weeye kan ugu yar oo 550 ka ah starterka mar walba uu raacayaa wuxuu ku siinayaa laba split totalka waxa weeye 20000 token 99 u qaybay waxaad heshay 202 coin 985 marka lagu dhufto waa 1989 euro waxaa kaloo gadad kaba soo qaad haddaa qaadatid pro traderka waa 10000 token iyo 2 split 40000 token buu ku siinayaa totalka
marka loo qaybiyo 99 waxaad heshay 404 coins 985 marka lagu dhufto waa 3979 return and executive trader ka waa 30,000 oo token iyo 2 split 120,000 oo token buu ku siinayaa 99 marka loo qaybiyo waxaad haysataa 1,212,000 sorry waxaad haysataa 1,212 and haddii lagu dhufto 985 meesha waxa kaaga soo baxday 11,000 iyo 939 waa qiimaha uu marayo maanta haddii Tycoon trader-ka oo macnaha 5,500 totalku wuxuu ku siinayaa 60,000 oo token iyo 3 split waa totalku waxaa helaysaa 480,000 tokens marka loo qaybiyo 99 waxaad haysataa 4,848 coins marka lagu dhufto 985 waa 47,619 premium-ka waa 13,750 wuxuu ku siinayaa 150,000 oo token iyo 3 split totalku waxaad helaysaa 1,200,000 oo token 98 marka loo qaybiyo waa 12,244 coin 985 haddii lagu dhufto waa 120,612 infinity trader-ka waa 300,000 oo token buu ku siinayaa iyo 4 split totalku waa 4,800,000 tokens 99 marka loo qaybiyo waa 48,484 coin qiimaha 984 marka lagu dhufto waa 477,575 okay and waxaa kaloo jirta marka package-kan la dhaho combo example aniga asagaan qaatay 5,000 iyo 13,750 marka la isku daro waa 19,250 macnaha lacagta euro ahaan aad bixinaysid waxaad helaysaa 210,000 oo token iyo 4 split 3,360,000 oo waxaad haysataa markaa token totalka 100 marka loo qaybiyo waa 33,600 oo coins qiimaha markuu 10 gaaro waa 336,000 oo waxaad ka heshay faa'iido ah euro Tycoon-ka waa haddaad qaadatid iyo premium-ka iyo infinity-ga waxaa la isku yiraahdaa triple combo wuxuu ku siinayaa 510,000 oo token iyo 6 split marka lagu dhufto splitkaas waxaa ku soo baxaysa 32,640,000 oo token 150 marka loo qaybiyo difficulty-ga waa 217,600 oo coins times 15 hadduu qiimaha gaaro waxaa ku xisaabtamaysaa 3,264,000 haddeertaan lacagtan markii loo fiiriyo dadka bitcoin ka faa'iido naga horreeyay waa aad bay u yartaa runtii laakiin waxa weeye markay suuqa timaado shirkaddan waxaa suuragal ah inay 500 gaarto laakiin hadda waxaan ka hadlaynaa waa minimum-ka weeye okay labadan package Tycoon Plus-ka oo 7,500 ah iyo Ultimate Trader-ka oo asagana 118,000 ah 7,500 aan dadka kaasaan kula taliyaa kuwanaan runtii more benefit ku jiraa sababtoo ah markii Tycoon Plus-ka qofku uu qaato oo ah 7,500 coin-ka horaad u helaysaa shirkadda marka share baad ka gadan kartaa haddaa mar coin-ka haysatid qofka hadduusan haynin share ma gadan karo marka maxaa dhacaya markii mining-ka aad u diratid lacagtii oo lagu soo sameeyo waxaad haysataa lacagta account-ka kuu soo gashay 3 option number 1 inaad deal shaker website la dhaha jira qalin buu ku qortaa dealshaker.com note ka samaysta wuxuu weeyaan waa website sida Amazon-ka oo kale ama Alibaba oo kale waa online weeyaan ama eBay-ga shirkaddan baa iska leh waxa weeyaan hadda waxaa member ka ah 33,000 oo shirkadood lacagta coin-ka aad haysatid oo 985 shilling yahay marka lagu dhufto lacagtaadii package-kaagi waxa ku soo baxday faa'iido badan website-kaas wax walba uu iibinaya waa ka gadan kartaa marka hadday gaari tahay rag baa hadda gawaari waa laga iibsaday waxaa hoteelada ay hayaan tigidhadii agensiga waana cusub yahay waxaa la furay February 2017-ka qofkii marka haddii shirkado 100,000 gaara soo galaan meeshaas baad uga adeeganaysaa waxaa kaloo samayn kartaa inaad share ka gadatid shirkadda oo coin-kaaga aad share u bedelatid waxaana suuqa imaan doona waa share-ka marka hore faa'iido badan baa ku jirta iyo option-ka ugu dambeeya oo ah 3 in aad sugatid shirkadda intay suuqa ka imaanayso oo 11 bilood ay ka dhiman tahay kadibna waxa uu dhan aad la bixi kartid marka advantage-ka meesha ku jira waxay tahay inaad noqotid dadka shirkadda pioneer-ka ka ah aas-aasayaasha wax ku darsada markay soo baxday faa'iidadan hadhow aad 70% ka soo bixi doono dadka helayaan aad qayb ka tahay hadda Facebook oo kale iyo Apple iyo Bitcoin haddaan tusaale u soo qaato Apple dad baa jiray ku darsada 900
oo maanta billions faa'iido ka helay nin baa jira 900 ugu jirta shirkadda Apple oo maanta hadaad Google ku qorto aad helaysid 900 buu kala baxay shaki baa galamiya kadib waxa dhacay shirkaddii suuqa timid waxay noqotay Nokia iyo Samsung kambaniyasha dhan baa ayada ka qaadatay suuqa hadda ninka shirkiisa maanta wuxuu marayaa over 2 billion buu marayaa imagine 900 haduu ku dhaafan lahaa maanta maalinba xafiisku wuxuu hortaagay shirkadihii maaragtay Apple Bitcoin oo kale sidoo kale dad baa jira ku darsaday thousands oo maanta ka faa'iiday maaragtay over maaragtay 8 million iyo ka badan marka maanta shirkaddan waxaan haysanaa la yiraahdo OneCoin fursadeenana waxa weeyaan haddaan maanta qayb waqtigii ugu fiicnaa la joogaa aad wax ku darsatid shirkadda markay suuqa timaado waxa ku xisaabtanaysa waa life change marka saan hadda qaybtii hore oo barnaamijka intaas uu ku egyahay waxaana idin kala soo hadlay shirkadda iyo waxqabadkeeda oo ah haddaan soo koobo lacaga digital ah oo telefoonka la iskugu dirayo waa mid iyo educationka caalamka oo dhan ee bariyeen qaabka u shaqeeya company-ga haddaadan aqoon wixii is not possible inaad ka faa'iido waxay kaloo sameeyeen website la yiraahdo Deal Shaker saan idin sheegay waxaasoo dhan markii la isku daro waa shirkaddii iyo hoosh ay rabtay inay qabato markaas shirkadda say ku najaxdo waxay u baahan tahay customer qaybta labaad aan ka hadli doono customer sidee lagu helaa shirkadaha waxa u furan laba waji ayna shirkad caalamka ka soo baxda waxay samaysaa inay marto system la dhaho xayeysiinta telefishinada iyo newspaperada ama inay samayso wax la yiraahdo network marketing waxa jira shirkado waaweyn oo caalamka sameeya network marketing marka dadka sameeynaya network marketingka waa businesska ay dadku suuq geynayaan waa aniga maanta hotel on air waxaan u baahanahay 100kaas qol aan haysto in liiso buuxiyo faa'iidan qaba laakiin $100 aan qaadanayay qolkii $10 baan ka siinaya waa noocaas oo kale dadkeena runtii fursadda noocaas oo kale ma fahamsana laakiin lacag aad u badan baa laga sameeyaa marka la isku daro video gamingka iyo movie industry-ga iyo music industry saddexda lacagta ka soo baxdo dhan waxa ka lacag badan dadka sameeya network marketingka ee businessyada suuqa geeya waxayna sameeyeen 167 bilyan hadda shirkaddan OneCoin number 1 waxa ka galay nin la dhaho Juha Barihala oo wuxuu waana filan buu ka yimid wuxuu ka helaa bishii 4 milyan lacag ka badan sanadkii wuxuu ka sameeyaa 48 milyan buu ka helaa Stan Killer Brothers shirkaddan waxay ka helaan milyan iyo 800 bishii sanadkiina waxay ka helaan 21 milyan iyo 600 waa dad anagoo kala ah shirkadda arkay laakiin ka faa'iideysto caalamkii dadka education uu sameeyay iyo company wuxuu u taagan fahamsiiyay taas waxay siisay lacag isbuuc walba u soo dhacdaa lacagta aan ka hadlayno waana la bixi kartaa lacagtan anagoo kale member bay ahaayeen adi maanta member haddaad noqotid fursaddan waa haysataa number 6 shirkadda ku jirta 8 10 dadkaas arkaysaan oo dhan waxay helaan lacag gaaraya 700,000 ilaa 500,000 bishii u soo dhacda okay qaabkee marka lagu heli karaa qofku wuxuu u baahan yahay package-ka ugu yar haddaad kusoo gashidii kan ugu badanba xaq baad u leedahay inaad dadka kusoo dari kartid shirkadda laakiin qasab ma aha intaad lacagtaada ku darsatid waa dhihi kartaa ani sanadka markuu ii dhamaadan sugayaa laakiin qofkii raba inuu ku darsado faa'iido ahaan wax uga soo baxaan wiigii isagoo shaqadiisa haysta dadka waa u bandhigi kartaa kaba soo qaad haddaad qof familkaaga iyo friendkaaga kusoo dartid taakuunka uu qaato qofkaas waxaad ku leedahay qofka 5 kun gatay 10% oo ku siinaysa 550 soddonka casho ugu horeyso waa soddonka kaliya offer ku furan 10% dheeri bay ku siinayaan haddaad 5 kun gaartid lacagta aad iibisay oo meeshaad ka heli lahayd only 550 waxaad helaysaa another 10% oo 1,100 ku siinayso taas waa direct sell 10 qof baa keeni kartaa ama 100 kun baad keeni kartaa adiga tabartaada ku xiran tahay marka network marketing waa system fair weeyaan qofka maalin walba dad hor lama heli karo laakiin dadka aad keento laftirkiisa waxay keenaan waxbaad ka helaysaa ilaa waxaan waxa la rabaa inuu dadka business u noqdo ay faa'iido ka helaan kaba soo qaad laftigaaga hal qof baad ku qortay midigtaadana qof kale aad ku qortay laftigaaga qofka aad keentay hadduu keeno qof dad gaaraya ilaa 600 midigtaadana qofkaas dadku ay sii keeneen ay gaaraan 500 qof waxay gadaan oo dhan markii la isku daro hadday 30 ku noqdaan dadka bidixda jooga waa teamka bidixda teamka right-kana 20 ku noqdaan wiigaas dhinaca midigta waxa ku leedahay 10% waxayna ku siinaysaa 2,000 euro oo commission ah next week 20,000 markii lagu baygaray zero noqonaya dhinacaas laftigaagana waxa ka go'ay 20,000 waxa ku soo haray 10,000 week kale dadku waxay gadaan haddana waa lagu calculate gareynaya automatically waa lagu baygareynaya waa every week lacagtan ku soo dhacaysa dadkaas hadday million gaaraan
waxay gadaan oo dhan mar walba ku soconaysaa qofka ugu dambeeya soo gala wuxuu soo galiyo volume kaaga soo galaysaa qaybtan kale waxa la yiraahdaa merchant bonus and dadka aad keentay number 1 qofka adiga aad toos u keentid wuxuu ku noqonayaa waxa la yiraahdaa first generation qofkaas wuxuu helo waxaad ku leedahay 10% and package-kaaga waa inuu yahay kan ugu yar 690 euro saad ku hesho first generation qofka 100 ku soo galo wuxuu helayaa qofku keenay iyo qofku sii keenay waa second generation haddaad ku soo gashid 3,300 wuxuu ku siinayaa 3 generation oo labada ugu horeysa 10% baad ka helaysaa third generation waxa ku leedahay 20% dadka number 3 ku jira generationkaaga saddexaad qofku keeno wuxuu ku soo galayaa fourth generation waxaanu ku leedahay 125 waana package-kaaga inuu yahay tycoon saa ku heshid 5,500 marka tycoon package-ka laba benefit ku jirta waxay tahay more education waad heshay ilaa 5 level more coins ayaad heshay oo tomorrow markuu shirkadda suuqa timaado faa'iido kaaga soo baxayso waxaa kaloo ku dheer dhinaca network-geena ilaa 4 generation asaga ku furaya tusaale ahaan haddii maanta first generation-kaaga aad 5 qof toos u keentid kaliya qof walba hadduu helo 100 waxaad ku leedahay 10% oo ku siinaysa 10 euro per person shantooda markii lagu dhuftana waa 50 euro second generation again 10% aad ku leedahay qof walba 10 euro aad ka helaysaa shantii qof haddii min 5 qof keenaan second waxa ku soo gashay generation 25 qof marka lagu dhufto 10 kii waxay noqonaysaa 250 euro oo weegas ku soo dhacaysa third generation waxaad ku leedahay 20% waa 20 euro 25 qof min 5 haday keenaan waa 125 haddii lagu dhufto 20 waxay noqonaysaa 2,500 fourth generation waa 25% 25 marka lagu dhufto 625 waxay ku noqotay 15,000 iyo 625 qaybtan generationka haddaad fahamtaan runtii ma seexanaysaan oo meesha ugu faa'iidada badan waa qaybtan weeyaan dadka milaayiinta helana waxay ka sameeyaan generationka xagan bay ka sameeyaan lacagta ugu badan company-ga wuxuu sameeyaa wax la yiraahdo recognition oo positionka ugu sareeya uu yahay sapphire iyo 7,000 oo euro haddaad 7,000 euro iibisid waxaad gaaraysaa leadership ugu horeeyo haddii aad qaybta ku xigta waa ruby waxaad helaysaa iPhone 6 ama 600 euro 40,000 aad u baahan tahay adiga dadka aad keento dhan inay iibiyaan dhinac yarna waa inay 10,000 taalo laba qof oo sapphire waa inay kugu jirto teamkaaga saasa ruby ku noqonaysaa emerald-ka waxaad ku gaaraysaa 80,000 iyo dhinac yarna waa inay 40,000 ku taalo rubigana waxaad u baahan tahay 3 qof oo rubiya inay kugu jirto organization-kaaga iyo package-kaaga inuu yahay tycoon diamond-ka waxa weeyaan diamond trip 200,000 waa inay ku taalo totalka dhinac yarna waa inay 80,000 tahay 3 qof oo emerald-na waa inay kugu jirto organization-kaaga package-kaaga waa inuu yahay tycoon blue diamond-ka waxay ku siinayaan Rolex watch oo 20,000 gaaraysa lacagteeda 500,000 waa inay gaarto lacagtaas aad iibisaan weegas adiga iyo teamkaaga oo dhan dhinac yarna waa inay tahay 200,000 four diamond waa inay kugu jirto organization-kaaga package-kaaga waa inuu yahay tycoon black diamond-ka waxay ku siinaysaa gold Rolex company ku siinayaan waa 1,500,000 inay tahay totalka dhinac yarna waa inay 500,000 taalo iyo 5 qof oo blue diamond waa inay organization-kaaga kugu jirto iyo tycoon crown diamond-ka wuxuu ku siinayaan 500,000 oo euro lacag u dhiganta oo Arab gold aad uga iibsan kartid yani coins dahaba oo shirkadda heshiis la tahay iyo 8 milyan waa inaad tahay lacagta aad iibisay dhinac yarna inay 1,500,000 ku taalo 6 waxaad u baahan tahay black diamond si aad ku gaartid position-kaas crown diamond qofku markuu crown diamond gaaran wuxuu ku xisaabtamayaa 5 milyan ilaa iyo 6 milyan bishii package-kaaga waa inuu yahay tycoon company-gan waa company dhinaca legitimacy-ga ah legitimate waxaana baaray German law firm-ka baaray waxayna ku qanaceen shirkadda inay tahay shirkad yani warqadaheeda iyo sida u shaqeynayaan intaba sax tahay Finland baa baartay booliiskeeda department-ga FBI-da u dhiganta ayagana way ku qanaceen waxaasoo dhan waad heli kartaa information-kooda waxaa kaloo baaray OBN oo shirkad weyn 400,000 members haysata ayagana way ku qanaceen milyaneero badan baa shirkaddan lacag ku darsaday oo maaragtay ayaga laftirkooda looyaradooda baareen oo ku qancay Conley Goose waxay haysatay ilaa 300,000 oo member shirkad kale oo ku soo biirtay shirkadeena intoodaba markay arkeen qaabkii company-gan u socoto waxay arkeen faa'iidada ku jirta ayaga iyo memberskoodina qayb bay ka noqdeen
targetka company-gan uu leeyahay visionkiisa waa in la helo 10 million users oo macnaha shirkadda member ka noqota maalna gashta tomorrow markay suuqa timaadana noqdo dadka serviceka company-ga isticmaali lahaa iyo 1 milyan oo merchant oo macnaha waa businessyada maaragtay wax lagu kala gadanayo oo ayagana iska register sida hadda Amazon-ka ugu register yihiin oo kale coin-ka aqbalayaan coin-kina hadda waa sarifan kartaa targetkana hadda waxaa ka dhiman maanta aan la hadlayo 11 months marka presentationka intaasaan kusoo gabagabeynayaa kolley halka arrinaan raba inaan idiin taabto dad badanaa jira oo maaragtay runtii Soomaali ah shirkado badan soo galay laakiin company-gan waa company ka duwan company-yaasha aan ka hadlayno company-gan ujeedkiisa dhan waxay tahay in dadkaas jooga wadamadan ka soo hadalnay in loo sameeyo meelay lacagta isku mariyaan iyo qaabkii dadka wax u diri lahaayeen educationkiina way sameeyeen haddana 3 milyan iyo 100,000 oo qof member ka ah shirkadaha cryptocurrency-gana maanta dadka lacagaha save garaysta 85% lacagooda waxay gashtaan company-yaashan sababtoo ah lacagtina waad gashatay oo aad rabtay inaad meel dhigatid qiimaheeda kor bay aadaysaa marka ka dambeysa qofku wuxuu ku soo gali karaa lacagta ugu yar oo ah 1,000 ama 690 ama 5,000 oo maaragtay company-ga aan idinkaga soo hadlay package-yada ugu fiican ah marka waxa weeye shirkaddan hadday suuqa timaado anagoo dhan hadda dad shaqaystaynu nahay oo mushaarka u soo dhaca wixii maanta ku soo gala tomorrow uu ka baxayaa laakiin shirkaddan waxaad gashatid fursad waxaad helaysaa runtii ah kow inaad wixii aad gashatay wax kuu noqdaan second waxaad kaloo haysataa dadka aad ku soo diraysa laftirkiisa waa faa'iiday qofkii shirkaddii baad la wadaagtay adigana xoogaa gudnaa bay ku siisay company-ga xaqaaga ah qofkii hadduu maanta shirkaddii wuxuu ku darsado tomorrow uu life changing u noqoto waa alxamdulilah rabbil caalamiin marka sideedaba gacmahooda jir bay wax ku gooyaan shirkadahan la arkayo ee ugu dadka badan caalamka ugu dhaqaalaha badan dad baa isku tagay lacag isku darsaday maanta lacagtaas shirkaddan ay aruurinayso sidii hadda hormuud u aruuriso kale ay dadka isku tagay lacagta isku darsadeen company-gaas hadduu public noqdo caalamkoo dhan gaaro faa'iidada noogu jirta waxa weeyaan inaanu wixii ka soo baxa oo mustaqbalka dadkaas wadamada loogu talagalana noloshooda wax badan ka bedeli doona adigana return fiican baad haysataa at the end-ga muhiimadda waa intaas presentationkina intaasaan kusoo gabagabay